heesaan sameeyo heestii ugu dambeysay waay waxaan u maleynayaa 2 bilood meelahaas ka soo wareegay waay eriyadeeda aniga lahaa waay laxanka iyo codkana waxa leeyahay iskalaaji waay marka haddii aad degeysatay heestaasi inta badan waxay ka hadlaysaa watilka ayaa min daawulaha bayna naas ana ayaamuhu bini'aadanka dhexdooda iyaga isku beddelay waa maalin adag waa maalin fudud waay waa saas isku jirjiraan waay marka haddii ay noloshu kugu adkaato oo sidii aad doonaysay noqon weydo ha isdhiibin ha niyad jabin waay nolol baa dambaysayna awlaadu iyo dhiman waay yaa nasiibka kuu maqan nabdigaagu beeneen waay ninna dunida kuma helo farxad wada nagaatee nasrigaaga raagay naxariis daba taal yaan samirka naaqusay nimcadooda kaa qadin noloshuna sideedaba way iska nooc badan too naxinteena xusaha waxa xiganaq iyo doog wala nuxrabaani nashqada u taala maxaad ka bedeli kartaa Allahi samaystay waa noloshan leh isaga maalin adag ka dhigtay isaga maalin adag fudud ka dhigay adigu waxba ka bedeli kartid inta badanna noloshan casriga waxaad arkaysaa Soomaali badan oo waayo waxyaabaha dibadda naga yimaada alaabo kali dibadda naga timaadayo noloshu laakiin fikrado iyo waxyaabo badan oo kala duwan naga yimaada marka Soomaalida waxaad ku aragtaa in dhiirigeliyayaal fara badan Soomaalidu ay yeelatay laakiin taariikh ahaan marka dib ugu noqoto ilaa yoomana hada haddii aan hal abuurku kaalintiisa galin Soomaalida qofka dhiirigeliyaha oo ah ee hanuuninta u qaabilsan ee maaweelinta u qaabilsan ee danta u haga qofka hal abuurka buu ahaa marka kaalintii hal abuurka u baahido qofka bini'aadankii bal inaanu isdiibin oo maalinta adag maalin fudud baa xigta ba inteeda badan ku taxalluqdaa marka qof kasta oo markaad aragto waxyaabaha igaga soo noqday dib feedback ka yimid qof kasta oo Soomaaliya oo dhageysta wuxuu kooranayaa wallahi walahan iga hadlaysaa buu kooranayaa sababtu uu soo leeyahay wax kale ma ogeyn kama sameeynin laakiin marxalada isku mid ah bini'aadanka soo wada maraa hataa aniga kula hadlaya adigaaga ila hadlaya wax laga yaabo inaad iska dhex daawato iska dhex aragto marka nolosha guud ee kacaakufka ah bay ku leedahay haystiibin awood darradu iyo nusqaantu wax weeyaan wax adag wax ka qaban karaysa dad dayaco nolosha wixii awooddaada ka baxsan yaanad wax ka qaban kareynin ee nidaam ilaahiye ku socota adigu inaad mushkilad kale ku beerisaa dacwalaskay kugu marka haystiibin hayso noloshu waa intanu waayaba marka intaas ma ku saabsanay heestan waxaad ka samaysay cid gaar ah uma samayn shakhsi gaar ah kuma codsan naftaada kama socoto markii aad aragtay baad ka samaysayo in xaaladdan cid walba ay haysato ayaad u samaysay dabcan haddaan ku raadado qofkaas ka hadlaysa aniga kula hadlayo marka kula eriyadaas waa sameeyo waan leeyahay waa dhinac iga taabataa oo qof bini'aadan aan hal maalin ku adkaato maalin u fududahay marka aniga laftirkayga waxaan kamid ahay dadka ay la hadlayso aniga igana maanta waxay goor adkaadaan dib baan u yara dhageystaa si aan nafteeda u siiyo motivation dhiirigelin u yara siiyo oo tusayna maalmuhu maanta aanay ahayn marka inta badan xogaad imka wadankeena joognaa qofku markuu wadanka ku nool yahay wax laga yaabaa noloshu inaanay kaliya ku tiirsanayn oo gurigiina ka soo tooso hooyada joogto aabaha joogo ehelkaagu joogo wax laga yaabaa culaysyo fara badan oo adiga kaliya kugu noqon lahaa inaad u hesho wehel laakiin qofku markuu wadanka dibadiisa u baxo ee noloshu isaga ka bilaabantay isaga ku dhamaato qof carrada noqoto 24 saacadood ee laga yaabo sidii aad doonaysay waxba noqon waayaan nolosha qurbaha inkastoo 6 sano ugu dambeysay aniga laftirkaygu qorooyinka aan ku biiroon kale qurba joog baan laakiin aan yara gaadhay 6 sanadood ku noolaa marka nolosha adaga meel walba taala bay qofka bini'aadanka faraysaa bal nolol baa dambeysay Steven laakiin abwaane dhalinyaradu heesta imika dhalinyarada intooda badan waxay u isticmaaleen sifo kale oo ama jacayl ha ahaado ama qof lagaga baxayo iska sugo samirkaaga naawil sidaasay isticmaaleen adiga heesta sameeyay bal dhalinyarada dhinaca jacaylka baasha u qaaday ee dhinaca kale u rogay hadday hableeyihiin hadday inama yihiin dhammaan dadka wada calaalaya maxaad leedahay wallahi markaas horta markay sugaanta ugu raxban tahay qofku inuu hal alla halkii uu doonay isagu oo la qaxan adiga markay ka soo baxdo nin walba meel buu buuxisaa qofka adigu ma qabatid ama jacayl hawla kaco ama nolosha qaybta kale hawla kaco wax kasta oo adiga nolosha ku saabsan waa nolosha way kala balaaran tahay ma aha inaad nolol adigu aad doonayso hirgeli weydo jacaylka way noqon kartaa shaqay noqon kartaa wax kale oo hiigsanaysa way noqon kartaa marka waxay ku qurux badan tahay sugaantu marka anigu haddaan ku raado heestaasi sidaasaan uga jeedayo sidaas ahayd waxa laga yaabaa macadnihii iyo quruxdii dadku marka hore ay ka dhex arkayeen inay kaba dhex waayaan oo qofkii lagu raado war heestan sidaas moo sameeyayna
dee sidaasay ahayd markaa suugaanta quruxeedu waxa weeyaan qof waliba hal alla halkii uu doonayo ma maqashay waraabo dhankii loo eriyaaba u bannaan aad iyo bahasha markaa suugaanta dhankii loo eriyaaba u bannaan haa heesta labaad waxaa la yidhaha bun iyo salo waxa qaadaa axmed aarshe heestaasi